السلام الله عليكم halkani waa dunida TV qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxa qayb ka ah dawladda Itoobiya oo shaaca ka qaaday inay leysay saraakiishii ugu sarsareysay ururka al-shabaab oo soo bandhigay inay cagta mariyeen guutooyin ka tirsan ciidamada new booliska dalka Itoobiya iyo qasaaro baan oo ka dhashay afayeenka ururka al-shabaab oo kamid ah dadka Itoobiya ay sheegtay inay dishay oo warbaahinta la hadlay sheeganay warka Itoobiya oo been abuur yahay madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo dadka Soomaaliyeed ugu baaqay inay hubkooda qaataan si al-shabaab dalka looga xoreeyo iyo soo magacaabitaanka golaha wasiirada oo walaac badan ay dadka qaarkiis ka muujiyeen qodobadaas iyo qodobo kale oo daahsoonayeen ku eegi doona warka dunida TV ee u diyaar garooba haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato ha moogana subscribe saarato YouTube-kan kana mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanida dawladda Itoobiya ayaa shaaca ka qaaday inay dishay hogaamiyaashii ugu sareeyay kooxda al-shabaab intooda badan وقالت ورك دولة إثيوبيا يا شاعة كقاضي إن قارجيس سراكيش سرسرة يورك الشباب كدمركي سراكيش سيهول كلمة لتركو قادين إذا ما كترسن قوة دولة ديجان كصومالي دا يكون سجنا ديجان ما كترسن حدود ك أي وداجان الجبر لدا باي يبقى يدولة ديجان كصومالي دا إثيوبيا dawladda Itoobiya waxay ku dhawaaqday inay dishay saraakiisha sarsare kuwaas oo ay sheegtay in nabadgelyada Itoobiya ay lid ku ahaayeen dawladdu waxay shaacisay in dagaal ka socda dhulka Soomaali galbeed lagu dilay saddex hogaamiye oo sarsare oo ka tirsan kooxda al-shabaab hogaamiyaha koowaad dawladda Itoobiya waxay ku sheegtay in uu yahay nin muddo badan ururka al-shabaab saameyn ku dhaxlaha isla markaasna hogaamin jiray howlgallada gaarka ah ee lagu beegsanayo dadka ka soo horjeeda kooxda lambar 1 saraakiisha ay dileen waxay ku sheegeen Fuad Maxamed Khaliif oo loo aqoonay Fuad Shongole isla markaasna ah madaxii abaabulka iyo tashkiilinta al-shabaab sidoo kale tan Shongole wuxuu ahaa madaxa al-shabaab ee dawladda Mareykanka ay madaxiisa duligta malaayiin dollar labo Cabdicasiis Abu Muscab afayeenkii kooxda al-shabaab saddex Ubayd Nuur Ciise oo ahaa sida ay sheegtay dawladda Itoobiya madaxii al-shabaab u qaabilsanaa abaabulka kooxdu ay ka wado dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan xadka ay gobolka Bakool la wadaagaan wakaaladda wararka dawladda Itoobiya ee lagu magacaabo Ethiopia News Agency oo soo xiganaysa madaxda sirdoonka dawladda Itoobiya ayaa shaaca ka qaaday in ay hogaamiyaashani ku dileen dagaalo ka dhacay gobolka Bakool xuduudka uu la wadaago dawlad deegaanka Soomaalida sidoo kale warka ka soo baxay madaxa sirdoonka Itoobiya ayaa lagu sheegay in ciidamada Itoobiyaanku ay burburiyeen barwaaqadii iyo kaydadkii hubabka ee kooxda al-shabaab kuwaas oo ay ku doonaysay inay ku weerarto Itoobiya toddobaadkii tagay Fuad Shongole oo kamid ah raggii ay ku qaaday weerarka dawlad deegaanka Soomaalida ayaa u qodbiyay kooxda wuxuuna sheegay inay xoojin doonaan dagaalka ay kula jiraan dawladda Itoobiya warka lagu baahiyay wakaaladda wararka ee dawladda Itoobiya ayaa lagu sheegay inay dileen sidoo kale in ka badan 150 askari oo ka tirsan kooxda al-shabaab kuwaas oo ay qaarajiyeen ciidamada dawladda Itoobiya dawladda Itoobiya waxay wacad ku martay inay sii wadi doonto howlgallada ka dhanka kooxda haddaba iyadoo dawladda Itoobiya ay gula wax ka sheegatay dagaalka ay la gashay al-shabaab ayaa afayeenka kooxda al-shabaab oo qudhiisu kamid ah dadka ay sheegtay dawladda Itoobiya inay dishay waxa uu la hadlay warbaahinta ururka al-shabaab afkeeda ku hadasha wuxuuna sheegay in warka ka soo baxay dawladda Itoobiya uu yahay wax kama jiraan afayeenka kooxdaasi waxa uu sheegay in dawladda Itoobiya ay jab xoogan gaarsiiyeen Cabdicasiis Abu Muscab ayaa sheegay in howlgal ay ku qaadeen deegaanada ay dawladda Itoobiya gacanta ku haysa gaar ahaan Aato ay ku dileen ku dhawaad 200 oo ka tirsan ciidamada new booliska dalka Itoobiya sidoo kale tan ay cagta mariyeen saldhigyadii oo ay qabsadeen afayeenku waxa uu sheegay inaysan waxba ka jirin warka ay dawladda Itoobiya baahisay ee ku saabsan in la dilay xubnihii ugu sareeyay kooxda
waxa uu sheegay inay wadaan howlgallo ka dhana dowladda Itoobiya isagoo dagaalyahanadiisa ugu baaqay inay xoojiyaan howlgallada ka dhanka ah dowladda waddankaasi. afhayeenku waxa uu sheegay wax laga xumaada ay tahay wararka been abuurka ee ay dowladda Itoobiya doonayso inay ka gato warbaahinta caalamka isagoo sheegay inay nool yihiin oo aysan wali dhiman. afhayeenku wuxuu sidoo kale sheegay in howlgalka ay sii wadi doonaan oo ay ku ekeyn doonaan deegaanada kale ee dowladda Itoobiya. waxa uu sheegay in dhammaan ay jaanta rugteen ciidamada Itoobiya ee ku sugnaa deegaanada iyo saldhigyada ay weerareen iyaguna ay gacanta ku hayaan. dagaalo qaraar oo ka dhacay gobolka Bakool warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya. ilaa iyo haatan waxaa la sheegay dhimashadu ay ku dhowdahay 200 oo dhinacyada dagaalamaya. saldhigyada ayaa la gubay waxaana la sheegay in gaadiid fara badan ay dhinacyadu kala qabsadeen. maamulka gobolka Bakool ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa uu sheegay in dagaalada qaraar ee ka dhacay xidka ay wadaagaan dowladdeegaanka Soomaalida iyo gobolka Bakool uu yahay mid geysta khasaaro xooggan oo la saadaali kareen. dowladda Itoobiya iyo al-shabaab labaduba waxay kala sheegteen guulo wax ku ool ah laakiin lama ogaan karo xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta halkaasi, balse waxaa la sheegay in sidoo kale la gubay deegaano ay dad rayidii deganaayeen oo ay kooxda al-shabaab adab qabasiyeen. dhanka kale tan al-shabaab ayaa dilay wasiirka cadaaladda maamulka Koonfur Galbeed Sheekh Luqbuur oo ka mid ahaa dadka sida weyn looga garan ogyahay deegaanada Koonfur Galbeed. ururka oo howlgalla maalmihii ugu dambeysay ka waday deegaanada Koonfur Galbeed ayaa qaarajiyay mas'uulkan oo ku sugnaa gudaha magaalada Baydhabo xilli uu ka soo baxay masjid, waxayna maamulka ay sheegeen Koonfur Galbeed in baaritaan ay ku hayaan. ruux isku soo xiray walxaha qarxa ayaa qarax ku dilay sida ay wararku sheegayaan, waxaana la dhintay qaar ka mid ah eheladiisa. maamulka Koonfur Galbeed ayaa la daaladhacaya amni darro baahsan oo deegaanadiisa ka jirta, waxayna maamulka Koonfur Galbeed ugu baaqeen laamaha ammaanka in amniga la xoojiyo oo tillaabooyin dhinaca ammaanka la qaado. dhanka kale tan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo la hadlay qaar ka mid ah saraakiisha maamulka ayaa wacad ku maray inay muhiim tahay in laga gilgisho xaaladda ammaanka iyo in heegan sare la geliyo ciidamada amniga. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa uga tacsiiyay shacabka Soomaaliyeed dhibaatooyinka argagixisada, wuxuuna sheegay in dowlad goboleedka Koonfur Galbeed deegaanadiisa falalka amni darro ee ka jira in ay dowladda federaalku wax ka qaban doonto. waxa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay dhaxda u xirtaan sidii dalkooda ay u xoreysan lahaayeen ugana hortagi lahaayeen gumaadka joogtada ee ka imaanaya dhinaca kooxda al-shabaab. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shacabka Soomaaliyeed sidoo kale ugu baaqay inay isgargaaraan oo isgarab istaagaan si ayuu yiri looga hortago dhibaatada dalka ka jirta gaar ahaan dhinaca abaaraha. hadalkan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ka soo baxay ayaa ku soo aadaya xilli dalka qaybo ka mid ah ay ka jirto amni darro baahsan, iyadoo laga sugayo golaha wasiirada inuu ku dhawaaqo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa dadka qaarkood waxay walaac ka muujinayaan sida loo wajahayo dhismaha golaha wasiirada. qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa qaba in ra'iisul wasaaruhu uu doonayo inuu keensado wasiiro asaga u shaqeeya balse aan ka shaqeyn dadka ay matalaan danahooda. siyaasiyiinta Soomaaliyeed qaarkood ayaa malaynaya in salaanka siyaasadda ay ka dhacaan kadib markuu tareenku ka tago ee lagu dhawaaqo golaha wasiirada, waxayna muujinayaan cabasho xoogan oo ku wajahan sida golaha wasiirada loo soo magacaabayo. la tashadii ugu dambeeyay ee ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale xubnaha kala shaqeynaya soo magacaabitaanka golaha wasiirada ayaa la sheegay in la soo gabagabeeyay. warka ka daawanayseen Dunida TV waa intaas, sidaas nabadgelyo.